أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waan salaamayaa mar walba adduunka ka joogtiin. intaa kadib kusoo dhawaada mowduucan aan jecelahay maanta inaan ila wadaago. mowduucaas oo cinwaankiisu yahay daacadnimadu waa furaha guusha iyo horumarka. marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan waxoogaa ka hadlo waxay tahay daacadnimo. daacadnimadu waxa weeyaan inuu qofka biniaadankii hadalkiisa iyo dhaqankiisuba ay run ku saleysnaadaan, ayna wax walba uu qabanayo iyo wax walba uu ka turjumayo oo mashaacir kasta xataa uu ka turjumayo inay run ka tahay, ayna daacad ka tahay ilaahay dartiina uu sameynayo. waa khuluq xasana oo xamiida oo ilaahay jecel yahay oo yani qofka biniaadanka khuluqaali uu yahay, yani qof wax badan nolosha kamina dhalin kara runtii. waayo ilaahay mar walba wuxuu jecel yahay adoonku wax walba uu qabanayo inuu daacad ka ahaado. ikhlaas baa la yiraahdaa carabiga, qofku inuu mukhlis ahaado oo wax walba uu qabanayo ay ikhlaaska ku saleysnaato oo liwajhillaah ama ilaahay dartiisa uu sameynayo waxyaabaha adduunka ugu muhiimsan. tacaamulka aad dadka la tacaamuleysana sidoo kale inaad mar walba ka daacad sheegtid oo daacad ka ahaatidna way fiican tahay. waana waxa yani diinteenu ay nafarayso weeyaan, maaha wax yani qofka yani wanaag qofka inay sameeyo tahay, balse waa wax qofka muslimka ah ee muslimnimada sheeganaya ku waajiba. inaad nifaaq iyo been iyo waxyaabo kala hidin oo iska qarsoon oo qofka biniaadankii dadka biniaadanka oo kula tacaamulo khalqiga ilaahay abuuray ma aha. wax walba ood qabanayso adoon ilaahay haddaad tahay waxa lagaaga baahan yahay inaad si niyada oo daacada oo ilaahay dartiya aad u qabatid. taasi ayaad ku gaaraysaa liibaanta adduunka iyo ta aakhiraba. runtii dad badan ayaa zamankan weliba aan ku noolnahay daacadnimada u arka si kale ama odhanaya qofku markuu daacad yahay runtii yani dad baa odhanaya qofkaasi wax walba waa ka daacad, waxaas daacadnimo ma waa doqonnimo. maaha doqonnimo ma aha, balse waa fadiilad yani qofka biniaadanka uu yeesho ama khuluq akhlaaq uu yeesho. qofka biniaadanka waa akhlaaqda ugu wanaagsan weeyaan. balse iminka waxa badan zamankan ku jirno dadku inay opposite ka yihiin. dadka u badan inta ugu badan runtii waa dad u badan nifaaq u badan oo qofkii hadalkiisii iyo ficilkiisii isma lahaanayaan. qofka isagiyo afka wax kale ayuu ficilkiisiina si kale yahay, uuna ka turjumayn wixii uu lahaa. marka meesha mar walba waxaa ku jirta riyaa iyo nifaaq, munaafiqnimo ayaa ku jirta mar walba. ilaahayna ay naga shartiro runtii, ayna naga badbaadiyo nifaaqa iyo dadka munaafiqiinta. waayo de ilaahay babay noo sheegayba inuu qofka munaafiqi au cadaabta ta ugu daran au mudanayo au ilaahayna wuu yiri inal munaafiqiina fi darki lasfali min annaar. ilaahay baanan ka magan galay qofku inuu hadal yiraahdo hadalkiisiina au nifaaq ku jiro oo been ku jirta mar walba. dad badan oo waxa jira zamankan waxaas ay caado u tahay runtii, oo qofka daacad ee runta sheegaba lala yaabayo oo laleeyahay runtii qofkani waa qof daacad, waa qof yani mar walba waa daacad because hadalkaagii iyo ficilkaagii iyo wixii oo dhan baa islahaanaya oo waxa tahay qof ka run sheegaya waxa uu qabanaya ama wuxuu leeyahay iyo wuxuu sameynayaba. axaadiis badan baa kusoo aruurtay ikhlaaska. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إلهي ما أقبله فعل أما عمل أنا أهين داعد أنا لور بين وجه إلهي، أما إلهي درتي لو سمينين إلهي ما أقبله. هدبا هدية داعد هاي waxa kuu furmaya albaabo badan. waayo waxaad noqonaysaa qof ilaahay la jira mar walba. ilaahay hadduu kula jirana runtii cidna uma baahnid. daacadnimadu waxay kuu horseedaysaa waxyaabo badan, guulo badan, albaabo badan oo ilaahay kuu furayo nolosha ay kuu horseedaysaa. soomaalidu waxay tiraahdaa daacadi ma hungowdo ayay tiraahdaa. mahmaah soomaaliyeed oo tiraahdaa daacadi ma hungowdo ayaa jirta. sidoo kale soomaalidu waxay tiraahdaa
silma qabe Allah sahan haddii xataa aad daacad tahay oo dad ay dhibaato kuu maleegayaan ilaahay wuu ka badbaadinayaa because ilaahay isaga niyadaada daalacanaya dadkana niyadooda daalacanaya mar walba waxaa tahay kii ilaahay la jira marnaba dhulka kuma dhacaysid haddii si walba la doono maanta in lagu dhibaateeyo oo adigu qof daacado oo wuxuu qaban ilaahay dartii u qabanaya waxaa tahay kii badbaado badan ayaa ku jirta daacadnimada ilaahayna inoo sheegay nabiguna inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam marka inaan noqono bulsho daacada runtii horumar badan baan ku gaari lahayn laakiin waxaan nahay inta ugu badan runtii haddaan weliba Soomaali nahay bulsho ka baaca mushtarta beenta iyo iska daba wareega oo wax caadi ah la noqotay oo maanta qofka daacadii wuxuu noqonayaaba qof unique ama qof balaanad kale ka yimid kawkab kale ka yimid ayuuba noqonayaayo dad badan ay la yaabayaan qofkan daacadnimadiisa balse ha la yaabin qofkaasi waa qof walba ka sareeyo weeyaan haddii aad daacad tahay adaa dadka ugu sareeya aad ka sareysaa ma jirto because waxa tahay qof ilaahay la jiro waxa tahay qof ilaahay tala saaranaya oo wixii soo dhan ilaahay dartii u qabanaya daacadna ka ah inta uun haddaa tahay qof cabdi oo sidaasa wax walba waad ka badbaadisaa haddii aad maxuu haayay dadka qaarkood ay isku dayaan inay ku dhibaateen laftirkooga sidaan kuu soo sheegay oo ka faa'iideystaan waayo dad badan waxa jira qofka markuu daacad yahay jecel inay ka faa'iideystaan oo nuqda dacfi ama weakness u arkaya qofkan daacadnimadiisa oo ku use garaynaya balse waxba dadkaasi kaama qaadayaan runtii qof walbana waxaad ku barataa mowqif baad ku baranaysaa qof kaa dheer iyo qof kaa dhow waxaad baranaysaa nolosha kula soo gudboonaanaysa ayaad qof walba ku kala tusinaysa qof walba halkuu kuu joogo qofka kula dhintay ee kula jabaya dhibaatadu markay weliba ku hesho waa qofka kuu dhow qofka maalinta ay wax ku helaan ama dhibaato ku heshana qofkaad iska garab weydana waxaad dareemaysaa qofkaasi inuu qof beenaala ahaa khaayin ahaa wuxuu sheegayna daacadani ka ahayn ilaahay baan ka magan galnay dadka noocaasa in mawaaqifta dadka ku baranaysa qofka daacadda iyo qofka kalena mowqifyada ku soo maraya nolosha ayaa ku tusinaya ilaahayna wuu ku tusinayaa mar walba kii daacadda ku ah iyo kii khaayinka ahba ilaahay sida cadceedu kugu bayaanimeeyaa wax walba haddii aad daacad tahay waad arkaysaa in iyadoona dahna kaaga jirin qof walba wuxuu ku jiro iyo wuxuu ku yahay iyo wuxuu kaa maagan yahay iyo wuxuu kula damaasan yahay ilaahay si bayaama ayuu ku tusayaa alxamdulillaah haddii aad tahay qof daacada runtii alxamdulillaah dheh ilaahay ugu mahadi waayo qofka maanta noloshan adduunka la joogo qofka ka badbaadayaa tahay adduunkana ilaahay ka badbaadinayo dee dhibaatooyinka aakhira jira adduunkana ilaahay ka badbaadinayo dhibaatooyinka jira aakhirana ilaahay ka badbaadinayo dhibaatooyinka jira ilaahay ha naga dhigo kuwa sidaasa oo qowlkooga iyo camalkoogu isleeyahay qofka munaafiqa waxaa lagu gartaa وأصلا نيسو شيء بينتها كمذا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان والعياذ بالله إلهي بان كما قال لي هدي قف كاسي هذا لو يرى هذا واقف بين بدن وبين على هدي قف كاسي بلنا وقرانا واقف بلنتا كبحة هدي قف كاسي أمانة لو ديبتنا أمانة دي واكي أوفين واي إيه كبحة إردايال صدا ميلك جت ويان صدح ذا قف كدولي هاي وقف منافق بيور منافق ويان إلهي بان كما قالنا دد كانوا عاسى إلهي waxaan weydiisanaynaa inaan ahaano dad mar walba qowlkooga iyo ficilkooga isleeyahay oo daacad ka ah wax walba si nolosha iyo guusha loo gaaro adduun iyo aakhiraba aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa qof walba oo i dhageysta ama codkayga waqtiisii inuu dhageysto aad ayaan iga mahadcelinayaa haddii aad ka hesheen waan yaroo waana ayaga ahayd haddii aad ka heshay walaalahaaga la sheer gare maybe inay adigana sadaqa kuu noqoto anigana ay noqoto assalaamu calaykum